السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونوع عشر كله حسابتي جتب كهيد مركان وحاول حسابتان جتب اسكو قص أهواعي أما واحد إذا سكلو أو اسكو دراي واحد سكلوكو يو مرتلوكو هرا وصل شيء نحكي دوينهن هذه مرتلوكو أي سيداس لوا حرف لوا لمبر إسرائيل تاعي مركز على مرتلوكو هذه لكن أي سيدان إسفشارين لوا حبوا واحد سكلوكو مركز توحواعي ونمبر لما يسترن iyo xisaabtii jajabkeed oo isaareedo halkaana macnaheeda markaas wuxuu noqonayaa markasta way ka weyn tahay hal ama murtalukuga markasta hal way maya ma dhihi karo markasta hal way ka tahay haddii aysan macnaha sida badan mararkaan kale way ka tahay halka laakiin matalan markaan kale markay tahay waxaa muuqata kan kore inuu ka weyn yahay hadduu ka weyn yahay marka stiil inta la isu qaybiyo ayaa waxaa loo celi karaa sekalukuga loo celi karaa muhiim waa inaad ogaatid sida sekalukuga murtaluku loogu celiyo ama murtalukuga sekaluku loogu celiyo laakiin haddana intaa ku baran doontaa hadda xisaabtaa marka aragto laba sekaluku waxa lagu isku dar sekalukuwan koowaad oo labo iyo macnaha ah baalkan saddex loo qeybiyo shan oo lagu daray saddexdan iyo laba loo qeybiyo shan macnaha labadan waa number dhammaystiran saddexdan waa number dhammaystiran ama labadaas waa jajab macnaha hal waa ka yaryahay mid walbaba marka laba siyaabood aad uga shaqayn kartaa kulli kan kore aan door bida aniga kaasaan xogaa aan isleeyahay kula dheeraato baalkan waa ogtaa inuu ka dheer yahay laakiin asagaa xogaa fudud xisaab kastana la waafajin karaa haddii laakiin aad ka jeceshahay habkan hoosena waa mari kartaa haddii marka kan kore haddaan kuu sheego waxa waaye macnaha qaabka ugu fudud waa inaad marka horeeto sekalukuga inta ka saarto u bedeshaa murtaluku ka dhigtaa see looga dhigaa marka waxaa looga dhigayaa waa shantan hoose waxaa ku dhufanee nambarkii dhammaystirnay markaa kadib waxaa ku daree nambarkan kale oo saddexda ah waanaha aan kugu celiyo shantan waxaa ku dhufanee lambarka halkaas yaalla kadibna waxaa ku daree lambarkan kale oo meeshaan baalkan korkaan saaran marka lambarka kaga soo baxay tusaale ahaan hadda haddaan fiirino shan laba ku dhufo toban saddex ku daro 13 waana kaasaa 13 shantan sideeda unbaa loo soo dhiganaa marka meesha waxaa ka dhex fahmi kartaa sekalukugan markii la samaynayay murtalukuga haddii 13 loo qeybay 5 ay ahayd macnaha waxa waaye shanta mid walba laba oo helay labadii oo helna waa kanaa saddexa qaybsan weysay oo shantii ka yar marka waxaa la markaan sarif ma lahayo isla qaat camal macnaha saas u faham adiga saddex loo qeybay 5 waa tanaa saddexdu weli ma qaybsamin laakiin labadu waa soo xasishay waa sidoo kale kan hadda markii aan celino sekalukuwan markaan murtaluku ka dhigno waa 5 ku dhufa 3 waa 15 laba ku dar waa 17 waa kana shantiina sideeda u timid waa tanaa ayaduna waa isla sidoo kale 17 markii 5 loo qaybiyo min 3 ay helayaan oo nambarkii waa kana dhammaystirmay laakiin laba qaybsami weysay oo soo hartay labadii waa kana weli ma qaybsamin waa macnaha laba loo qaybiyo 5 marka labadan meelood markaan bedelnay oo hadda kan arkaysid macnaha sekalukugan arkaysa deer ujeedid sekalukugan waa kana markaa murtaluku ka dhignay kan kaleetana waa kana murtalukugan waa sekalukugan markaa kadib waxaa u isticmaalaa sidii jajabkii hore cashirkii hore aan kusoo qaadanay oo la isugu darayay ayaad maaragtay u isticmaalaysaa haddii aan la yidhahdo saas u isticmaalaysaa sida ugu fudud haddaa mar labaad kuu boogsiiyo waxaa labadan shan hal baa kasoo qaadanay labadan koreeyana waa isku dareen labada koreeya 13 plus 17 waa 30 loo qeybay 6 waxay noqonaysaa raalli ka ahda meeshaan 30 loo qeybay 5 aan dheelaay tan waa 5 30 loo qeybay 5 macnaheedu waxay noqonaysaa 6 ay noqonaysaa habka kale oo samayn kartay waxaa waaye waa kan labaad macnaha labadan iyo saddexdan toos ay isugu dareen waa kala hormariyay raalli ka ahda 2 iyo 3 macnaha si toos ay isugu daraysaa 5 ay noqonaysaa labadaanna macnaha qaybtan labadan oo murtaluku ay markaas noqonayaan 3 loo qeybay 5 oo lagu daray 2 loo qeybay 3 waa kuwana sidii caadigii oo jajabkii caadiga ahaa murtaluku uga shaqeynay labadan shanaad hal baa ka soo qaadanay labadan korna waa isku daray 3 lagu daray 2 marka waxay noqonaysaa 5 loo qeybay 5 haddii loo qeybay 5 waxay noqonaysaa 1 markaa kadib ayaa isku daray shantan oo lagu daray 1 waxay la mid noqonaysaa 6 labada habkaa raacdaba isku jawaaba kuu soo baxaysa laakiin aniga kan kore aan door bidi lahay si gaar ahaan markii mataqaanaa ku dhufo u qaybin waxaasoo dhan u isticmaalaysa marka
haddii second loku lagu yidhaahdo laba second loku isku dar sidaana sameynay haddii hal second loku iyo hal oo yahay maaragtay murta loku oo laga saaro matalan tan oo kale laga saarana de kanaad marka hore murta loku u bedelay kana sidiisa maaragtay aad ugu isticmaalaysa haddii ala yidhaahdo oo macnaha murta loku ku yahay uma baahnid markaas inaad bedesho kana isbedeli lahay keliya oo laba loo qeybiyo shan noqon lahay anyway waxaan rajeynayaa in markana si fudud ay intaas fahamteen wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu